بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصحابتي قيمها بدن ميل walba joogtaan soo dhawaada kulay waa xili dambo laakiin dadaal dheer iyo waliba waqti badan aan gelinay sidii aan isku heli lahaa walaalaheena qiimaha badan Faizo iyo Saadaq ayaa ugu dambeyntii waxa suura gashay saacada ka hor adiga ku dhawaad dhowr saacadood inaan wada hadlaynay marka si kal gacayl leh oo Soomaalinimo ku dheehan ay runtii ay u wada hadleen marka waxa marka ugu horeysa aan rabaa inaan asxaabta meel walba joogo qofkii saqdhax ay u tahay waxaan leenahay habeen wanaagsan teamka kale ee ama dadka kale ee subax ay u tahay waxaan leenahay subax wanaagsan dadka galab ay u tahay galab wanaagsan aan leenahay kulay anaga xageena haatan waa xili dambe waxa la marayaa waa sideedii oo ama labadii habeenimo ayaa la maray laakiin wax walba waxa ka weyn dadaalka markaasi in ay is arkaan ama ay wada hadlaan walaalaheena qiimaha badan Faizo iyo Saadaq dadka Soomaaliyeed badana labada qofood marka ay is hayaan ama xurguf laga dareemay dhextaal waxa ka faa'iideysta shakhsiyaad kale ka faa'iideysta oo raba dadka markaasi inay iska hor keenaan dadkaas oo caan ah oo meel walba laga yaqaan social media isticmaala inay dadka ay u kala warqaadaan laakiin wixii waa la sugu weynay in berito ay heshiyaan maadaama wax walba kuleelka lagu gooyo ama geesalo aad kuleelka lagu gooyaa in ay caaw ayagoo bad qaba oo caafimaad qaba oo isku niyadsan inay wada seexdaan ama nin walba uu seexdo ayaan runtii dadaalkan aan u soo galnay waxaana go'aan ku gaarnay in labadoodaba qofka kale maadaama shacabka Soomaaliyeed markay social media isku marsiinayeen hadallada gafka ah ama hadallada aan wanaagsanayn dadku way daawanayeen marka saas la ajligeeda heshiiskoodana shacabka Soomaaliyeed meel walba ha joogay iyo asxaabtooda inay arkaan marka farxad weyn inoo tahay caawa aniga iyo asxaab kale aad u fara badan oo arinta ka shaqeeyay Saahil iyo team kale aad u fara badan oo ayaga naftirkooda jooga maxaan ku yiraahdaa Talyaaniga jaalida Talyaaniga yar jooga oo gudoomiye jaalida ah oo Maxamed la dhaho asagan aad ugu mahadcelinay arinta ka shaqeynay live far badan oo la doonay in la soo galo caawa lagu sii horiyana intoodii badan waa joojinay dadka rabay inay sameeyaan runtii waa ka joojinay waxa rabaa marka Faizo inaan soo qabto oo ay walaalkeeda ay shacabka Soomaaliyeed ay la hadasho waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa dad kale oo ayaga naftirkooda arintan wanaag ka tixraacay oo rabay dadka inay heshiyaan rabay oo dadaal badan ku sameeyay laakiin u suuragelin alxamdulillah walillahi alhamd marka arintan marka guul ay caawa ku dhamaatay cidii ku farxi lahayd waan soo dhaweynaynaa cidii ka nixi lahaydna waxaan leenahay nafta waayo dad Soomaaliyeed jiil Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo wanaag isku bartay oo wanaag wax isku la qabtay oo runtii in laga dhax shaqeeyay oo hadan la isku diray fidno laga dhax abuurayna ma wanaagsana mar walbana waxa la qaataa nabadda la qaataa labadood aad ugu mahadcelinayaa Faiza nabadda qaadatay Saadaqna nabadda qaadatay dadka kalena waxaan rajeynayaa inay ayagana ay u naseexayaan ay ku amaanaan nabadda ay qaateen labadooda ay heshiyeen inay ku dhiirigeliyaan ayaan rajeynaynaa si bari kama dad kale ay ugu daydaan ayaan rajeynaynaa asxaabta kale xumaanta waa la sheergareeyaa wanaag ina sheergareysaan ayaan idin kula dardaarmayaa goordha waxa rabaa Faiza inaan soo qabto kadibna Saadaq aan soo qabto ay idila hadlaan waqti kooban aan siin doonaa maadaama xilli dambe ay tahay ma doonay inaan sii dheeraado mar rabo mar walbana wanaaga in laga shaqeeyo waa muqaddas wanaag in laga shaqeeyo nabadda in laga shaqeeyo waa muqaddas maanta hadaan laba qofood xurguf dhextaal hadaan heshiisino waxaan rajeynayaa inta inoo dhimanna in ay ummadda Soomaaliyeed ay heshii doonto waddanka Soomaaliyeedna oo markaasi uu heshiinayo Faizo waxaan ka dalbanayaa haday daawanayso qadka ku jirto oo aan goor dhow la hadlay inay soo dalbato ayaan rabaa inay soo dalbato
ayaan rabaa si shacabka Soomaaliyeed ee na daawanaya ay u arkaan wanaagga markaasi jira markaasi inay arkaan faa'iido waxaan ka rajaynayaa inaad soo dalbatid ayaan ka codsanayaa oo arrintan markaasi ama aad aqbasho ayaan aqbalaya faa'iido inaad i aqbashid dadka Soomaaliyeed ay ku arkaan raalli ahada waa xili dambe kulay arrintan xurguftan dagaalka markuu socday hoola kale ku jiray safar ku jiray laakiin markii aan arrintan maqlay anigoo safra garteedii waa u fariistay faa'iido waa ku salaamaya taliya waa ku salaamay waa ka qaadsanaan Jamaal adigii dhamaan umada daawanaysa oo faraxsana horta inaan la soo wada galno muddo hore isku in dambeysaniga adiga caawa aad u qurux badan tahay qofka binaadinka haddii qalbigiisa nadiif yahay waxba kama halaabayaan qalbiga nadiif laga noqdaa haddaad qalbiga aad ka xuntahay wajiga kama qurxoonaanaysid aad u mahadsantahay Salmaan wahagag mar rabo inaan dheeraan waqti dambe inoo tahay shacabkii xumaanta idinka faafinayay aan rabnaa marka inay caawa arkaan wanaagiin inay arkaan quruxda wajigaaga saaran midaas mid la mid ah waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaad u sheegto niyadaada wax ku jira iyo walaalkaaga waxaan codsanayaa dadweynaha isoo wacayo dadka isoo wacay waxaan ka codsanayaa inay soo wicin please kada iyo wicitaanka haye Faiza waqti kooban aan haysanaa saadaq aan rabaa inaan soo qabto shacabka la hadal walaalkaaga xurguftiidii dhex martay oo cadow idinka faa'iideysan dhigi karnaa bal waxaan rabaa inaad kelmadaadan ku siiyaan doonayaa adoo waqtiga soo koobay horta Salmaan waa maasan tahay aniga wiilkaas walaalkayga waaye maxay haytooy dhibaato badan aan dhex martay social media waxa waaye de qaladaad badan baa la geystay asagana qaladaad badan buu Facebook ka geystay ma fahantay marka qaladaad badan baa dhacay Salmaan Jamaal qaladaad badan baa dhacay hay waa ku maqlaya ma qashaa Salmaano waa ku maqlayaa qaladaad badan waa dhacay waan ognahay waa wada hadasheen caawa si fiican aad u wada hadasheen waa ismarxabayseen waa si gaf badan buu ii geystay gaf badan buu ii geystay dhibaato badan buu ii geystay wax badan baa dhacay wax allaali wixii dhacay oo dhan horta qadar bay ku dhaceen ma fahantay anigana cafis oo leeyahay asagana maaragtay kolay calooshiisa ma garanayo oo maanta oo dhan baan wada hadlaynay dee qofka binaadinkaana qalad wuu ka dhacaa asagaba qalad buu ii geystay nafteedii dhan buu inqaabay saasay tahayna waa walaalkay aan jeclahay waxbana kama qabo wixii dhacay way dhaceen af alii masaabax Salmaan Jamaalow waa tahay cafis iyo masaamax walaalkaaga cafis waa cafisay soo ma adigana maxaad ka dalbanaysaa aniga intuu ii geystay oo dhan anaa ilaahay dartiis ku haraayo anaa naagnimadeeda ku haraayo anaa ragnimo rag nin raga u hadli lahaa anaa u hadlaayo waana ka haray arrintaas inay sii socotana ma ahan wixii waxaan kaa rabaa aad u mahadsantahay aad kaaban yihiin ma fahantay laakiin anaa ilaahay ka haray wiilkaas walaalkaygana cafis iga yahay aan iscafino caf alii masaabax shaydaankan dadka naga dhex shaqeynayo shaydaankaani ilaahay shartooda hana mootiyo wixii dhacana way dhaceen ma fahantay haye sidii shalay aad aheedeen si ka wanaagsan sidii shalay sidii waa inkastoo gaf ii galay oo walaalahayga gabar ila dhalatay oona weligeed ma rabno faa'iido waxaan rabaa okay waa maasan tahay ma rabno wixii hore u dhacay inaan ku noqono dhan ma rabno wixii hore dhan ma rabno cafi walaalkaaga asagana cafis ka dalbo asagana sidoo kale waa soo qabanaya cafis uu kaa dalbanaya wuuna ku raalgelinaya bal adiga horta cafis ka dalbo cafi asagana aniga cafis oo iga yahay waxa u qabo malahan maadaama aan caawa dhan wada hadlaynay wanaagii aan ku wada hadlaynaan hadda diyaa aan ku hadlaya saadaq waxa waaye waa tahay walaalkaaga waaye waa wiil walaalkaaga dadaal fara badan oo kuu soo galay maasha allah marka waxaan rajaynayaa inuu ku maqlayo isagana uu
ku haraayo naagnimadeeda ku hara maxaa la dhahaa geesinimadeeda ku hara kureejadeeda ku hara waa walaalkay Soomaaliyeed abaal buu ii gastay abaalku ii galan maanta aqra Allah siiyo Salmaan Jamaal adigana waa ku mahadsantahay dhexdhexaadka iyo wanaaga aad samaysay Allah ajir ha ka siiyo insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in Ilaahay sidoo ka dhigay noqoto waa tahay saas waa Ilaahay sidoo ka dhigay noqonaysa sida u wada hadasheen horta waqtiga ay siiseen iyo sidaad iga ogolaatay adiga iyo asaga sidoo iga ogolaaday labadiin aad idinkaga mahadcelinayo waxaan talo kuu siinayaa adigoo intaas kaaga mahadcelinayo waxaa jiro shakhsiyaad war xumo tashiil ah hadda ka hor waad ogeyd in lagu yiri Salmaan lacag $1,000 oo iga qaatay waxyaalo noocaas oo kala markaad ka daba tagtay aad ogaatay ninkii aad baartayna inuu ku maaweelay oo been kuusha telefoonka ka dirsada waad ogeyd markii aad qadka soo wada gelinay marka waxaan rajaynayaa qof bani aadan ah wuxuu kuu soo sheegay inaadan aaminin qof bani aadan ah hadduu ku yiraahdo wax dambigaas ninkaas hebel waxaasuu ku yiri hadduu ku yiraahdo inaadan aaminin sharafaad leedahay sharafaad leedahay aad iyo saasaan kaa rabaa wanaagaaga iyo gabar Soomaaliyeed aad tahay gabar qiimo laha tahay marka wanaagaaga inuu halkaasi ka sii socdo wadan fiican aad joogtaa mustaqbalkaaga iyo aayahaaga dambe inaad ka shaqaysid ciidahan kale ama shakhsiyaadkan kale ee arrimahan qabiilka u bedelayna waa wixii dalka soo burburiyo waay marka ha ka yeelin Faizo Cabdirashiid Faizo Wadani sharafaad leedahay qiimaad leedahay waqtigaad isiisay iyo sidaad u aqbashay maya mararka waa lagu maqlayaa si fiican lagu maqlayaa sidii maaragtay horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala sakri insaas ma nugtaas u fiidileen maxaa la dhahay Salmaanow dadka qabiilka iyo qoriga ku jira mihi qabiil ma aqaani mana raasanin dadka oo dadka qabiilka u soo raasada mihi qabiilna ma aqaani عدي إيجا آمسون